abo iyo mataan ciidi waa laba sheeko oo sheekooyinka Soomaalida aad caan ka ugu ah waa laba sheeko oo mid walba dhowr cashadood noqonaysa casharadu ma wada raaci karaan haddii aynu maanta soo qaadano mid aan ka soo qaadano mataan ciideed iyo calidhan iyo sheekadoodii in yar haddaynu ka taabanno waxaan ka waraystay dhowr oday intii aan dhaqankan ururinayay ninka Cabdilaahi Macallin Dhoodaan la yiraahdo casharada dhan baan ka duubo sheekadaas ugaaska imika reerkii fadhiyana waa ka waraystay waxaan ka waraystay oo kale nin waligii halkaa oo la jiibay oo la wada yaqaano oo la yiraahdo Maxamuud Boodka Xablo reerkiisa waxa kaloon ka waraystay Ismaaciil Cawad Geesood oo taariikhda ninkan waaxidan laga waraystaa intaasoo nin ayaa sheekadaasi aan ka waraystay kelmad laba kelmadood oo ay meel ku kala leexsan yihiin waan arkay laakiin sheekada inteeda kale laguma kala bayrin waxaa la leeyahay kolkii hore ayaa waxa jiray qola kabadha oo safarkan imika baayaca mushtariga ayaa marka uu tago xaggaa la odhan jiray kabadhahaasi ayaa wuxuu qaadi jiray dhar iyo raashin xaggaana wuxuu kaga bedelan jiray xoolo iyo subag iyo malabuun iyo harag oo maa xoolo nool harag subag iyo malab oo may jirin dee lacagahan iyo waxaa la leeyahay sida sheekadu leeyahay nin wacays la yidhaaho oo nin reer Axmed ah ayaa halkan xoolaha ka qaadi jiray ninkaasi wuxuu ku dagay reerugaas reerugaaskii markii uu ku degay ayaa xoolihiisii la boobado xoolo badan baa la dhacay nimankii reerugaas oo waxa dhacay reer darar nimankii reerugaas iyo qolada reer Xandulo malaha xulufo ahayd kolkaa oo calidhan iyo nimankay walaalahaayeen iyo iyaguna halkaa la jiray ayaa waxaa gabiyey ninkii wacays la odhan jiray ee reer Axmed magaca Iidoor la yidhaa waa ninkii lahaa Iidoor oo dhan magaca saameeyey ninkaa keliya baa lahaa ee maanta qabiilka Isaaq la yidhaa Iidoor loo yaqaan Isaaq ma wada lahayn awalna ma wada lahayn Axmed Nuuxna ma wada lahayn xitaa ninkaasun baa lahaa kablada Iidoor la yidhaa halkay ka bilaabantay halkaasay ahayd wuxuu yidhi dawlooy ba'ay reer ugaas lanagu dayn waah haddii duubigii nool yahaan lana danqaabeen isagoo canaananaya kolkaa ninka meesha saaran haddii duubigii nool yahaan lana danqaabeene dawlooy ba'ay reer ugaas lanagu dayn waaye imika hadhuub laga dabsiin deere iyo luule imikay darmada ii rakibi dahabadaydii dil miyaan ku sugi xoolo waa doogga soo baxaya buuri gabaygaasu tiri nimankii baa xanaaqay reerugaas hala tidhi wacaysow nafa ka hantaaticin oo heedhe herer baa la geyn hadal xumaantaa watay haleeladu darta harada oodnayde hubkana maanan dhigin sheeran maal soo hankoobsadaye hantidii maxaa maqan haddaan heegankeed geliya buuri kolkaa xoolihii oo dhan waa la soo dhiciyey dagaallo xunxun baa ka dhacay laakiin maxaa ka maqnaa bahal cunaabi waaweyn oo raggu xidhan jiray oo makaawi la yidhaa ayaa nin mataan ciideed la yidhaa iska qaata mataan ciideed ayaa qaatay kolkaasaa wacays baa gabiyey wuxuu idhi ma makaawigaygaan garduur lama mushaaxaynin ma mataanka xidhan baan dartii loogu mari waayin gabaygaa ayuu halkaa gabay dheer buu mariyey markuu kaa mariyey ayaa mataanna intaasunbuu doonayey inuu yidhaaho in ninkaa Iidoor yidhaaho mataan la'aantii dalka lama joogi karo mataan baa faras
soo diray walaalkii buu soo diray wuxuu faradkaa fuul kaana kaxeeyo wacaysadoo sida ii keento wuxuu yidhi intuu markuu u keenay baa wuxuu yidhi shanta reeree baxawaadle waa kala shisheeyaan mashiinile shaf iyo gawrac waa kala shishlaadaan labadeennan oo shaarignaa shuqul xumaadeene rag baan sharaddii beenaynayee kuma shideeyeene hadday sharaf lahaayeen baryaa soo shafeecsadaye haddaan shayadii ku huree sharaca lee qaada buuri oo halkaasuu ku soo siiyey arrintii oo caynkaasa oo arrintii ay muddo yar dambe ka dambaysay oo xaalkii la ilaaway ayaa waxa wada haasaawo tegayoo isa soo raacay sida laleeyahay sheekadu leedahay calidhan iyo mataan ciideed habeenkii bay dhexeen maalintii oo dhan bay cidlo ku gaajoonayeen habeenkiina cidlay ku dhexeen subaxii bay reer yimaadeen reerkii markuu yimid raggii waa naga maqanya xoolina way dareereen dee caano ciiraannu haynaba ladha ciirtii baa loo keenay mataan baa yidhi noo keenoo markii uu mataan cabbuu ka dhargay ayaa cali kacay markaasuu idhi maxaad u cabbi weyda caanaha maana calidhan lay garanayaa reer hebel buu ciir ka cabbi lay odhanayaa buuri waa mataanna caanubuu ka dhargay mataan halkaasuu cadha istuutuuba waa ninkan maxaad kaga ciil baxdaa wallaahi ninkaa wuxuunbaad kaga ciil bixi kartaa adoo walaashii guursada oon deetana haddana haween ka dhigan salaadu wuu soo geed fadhiistay oy cali walaalayiin waa la siiyey waa loo meheriyey haweenay kamuu dhiganin berigii dambay reerii timid markaasay inamala booda dhigato waxaa la ogaaday inay inan tahay markaa mataan oo maqan ayaa labadii reer isqabsadeen waxaannu doonaynaa baa layidhi in inanta lanoo furo oo hee se loogu furo dee mar hadday caynkaa tay dee xoolihii soo celiya xoolihii oo dhan bay celiyeen inantoodii baa loo furay sidig hal isku sidkanoo fallaag laydhaah iyo faraskii caanka ahaayo mataan ciideed lahaye fayr la odhan jiraa la siiyey markaasuu gebiyey ninka haddana calidhan iyo walaalkii faarxafi midu ahaa mooyaane mid baa gebiyey sidigtii fallaag iyo haddii fayr baa la ii siiyey oo inantii kaa furan tahay ood fara madow joogto mataanow aduunbaa figlehe fayda kuma raacin inanan kaa fashiin baa sidii faral ilaahay buuri naftaba inan kaaga jari ayaa weliba faral ilaahaygu abuuri mataantii markuu maqlay nin mataan yaqaan oo ciid joogaa u dhaaranaya ayuu iska soo dhaqaaqo inantoodii buu wuxuu yimid salaado oo warqaddeedii la siiyey dee xaalku siu ahaa mooyaane kolka la furayna ma joogna reerkoodaa furay aqalkuu iska soo galo wuxu dhi aniga waxba igama furra cali baa loo sheegoo layidhi wallaahi waa ka ku jira mataan aqalka calidhan ilantoodii buu yimid oo wuxuu yidhi naa yaa kula jooga oy tiri waa layla joogaa yaa kula jooga mataan uudhi soo baxdhe waxay tidhi maanta labadayda lugood dhexdooda adoo ku jiro walaalkay soo galunbaad noolaan karta salaado aniga iyo nin ciid jooga lanama kala qariyo buuri kadinkuu isu taagoo baxad buu yidhi buu xagga kale uga kudiyey haddaan hooyaa buuri yacnii nin ciid joogaaba inuu idili karaayo hadduun baan gartay buuri arrintii cirkay gashay hirig bay noqotay dee boqol qaadan mayne boqolkii ninka magtiisa iyo boqolkii umataan ragga dheeraa baannu rabnaabaa la yidhi labadii boqole halaad baa la bixiyey labadii boqole halaadee la bixiyey ayaa nin ina dubba laydhaa cadan ka soo gebiyey oo laygu idhi wuxuu ahaa nin sacad yuunisa wuxuu yidhi nimanbaa mataan gawracay oon gootadaa bixinne gayiligu nastaabuu ahaa geday jabiyeene goblayay xuseen xaday muxuu gool u qalan waayey gabaygaasu soo diray waxay tidhi walaashii mataan ciidadaniya wiilkaa iyo doorbuu meel laga wada jooga kolkaa ninkii ay ninkan walaala ahaayeen kufrow inaad dubbaan ugu kashife kooskii caadan weyne hadalkiina soo wada kuliyoo kunoo yidhiye layidho warankii
علي دانو جيدكii ku tiirsan baxay kale uga bixiyay waranka علي دانا halkaasoo ku dhintay waar magtii nasiya de waa kore boqolkii qaata waar boqolkii halaada aan ka bixiyay labadii boqol halaada aan ka bixiyay mataan ayaa rabaa te mataan la qiimo muu hayne ninkan cali buu haado nin caadi buu ha ninkan caadi mataan caadi buu dhaafsanaay ka daaya wala diiday wuxuu yiri ninkii ay walaalahaayeen calidan ilaahay hal diid baxawaad lana hal diid ana hal diiday wuri ilaahay hal diidiyo inuu walaalkay soo nooleeyo calidan waa diiday wuri baxawaad lana hal diidiyo inta daraad ka bixiyay mataan in ka yar inay isiyaan waa diideen wuri ana hal diidayo inuu cali mataan ka hooseeyo waan diiday wuri halkaas lagu kala tagay waa ka gabayada badan ee tiriyay maqasheen haddaan caynabo cuniyo guluf xata kugu raagi waxaad cunba way tahay haddaan caday ka dhuubnaani haddaan cududahooda isku jabin cuurka baxawaad cadla quutamooya haddaan caana laga dhaar sida loo calool qaba haddaan cali ka weynaan calaano calay dhalay haddaan dunidu ciirin buura damana qumbula duriyu bariga haystaniyo waan lagu weynaan ogayne waxa adduunka ololinaya garan mayne aduu gabayada caynkaas tiri gabay kalu tiriyay oo leeyahay matunka ay buuxsamay sidii 10 jir urgaala wuxuu yidhi sida ari tigaad cunay miyata haladii waay sida xoolo toos qaba miyaan tiba madoobaad tirayo iyo cilmiyaan tiba madoobaad sida ari tigaad cunay miyata haladii waay matunka ay buuxsamay sidii 10 jir urgaala ma tallaabadaydan haldhaa orod wax tuugayn ma tumaatidaan hidin karaa tu alla mooyaane balaayadan itaabale miyaan tiigsan kari waay buudha waa gabaygaa tiriyey muu dhammayn maalintii dambe waa ka cabdi dilay markuu soo dilay ayuu gabaygii dhammaystiray wuxuu yidhi macabdaa turaabka isku rabagay waa tabtaan wadaye goortaan ku taagsaday miitanaan ayuu reemay ma tumaatidii baan wadnaa tahaan wax weydaarshay dhurwaa libaaxuba dhurwaa 10 kuna ayuu tulud ka qaadaaye ninkii farayaraan igu tuhmaataana ka hoostaaye walee aniga waa lay taxgeli teerinimadayda gabayga caynkaas ahaa waa kii tirin jiray waa kuwa lagu kala qaxay waa kuwa mareexaan u galay nimankii reexantu mareexaan bay muddo la yaalay markii asaa waxa isdilay nimankii la odhan jiray ree dalal iyo nimankii la odhan jiray makaahiir aad baa la isugu madha nin ka mid ah baxawaadlaha ayaa u tegay nimankii reer xandun wuxuu yidhi niman yahow waa la isoo kiin diray waxaa la yidhi ninkii aad disheen waa ka kacay cabdiye dambe ninkii hore ee calidhan ee laydinka dilayna 200 halaad qaata intaasi ayaa laygu soo diray waa inoo maalintaas iyo meel heblaayo meel labada beelood u dhaxaysa oo labadooda reer midna ahayn buu kula ballamay qoladii kale uu tegey wuxuu yidhi nimankii way jabeen xoolahoodii way daltabiyaysteen meelaan xoolahooda ogayn bay tageen waxay doonayaan magtii sidaad doonaysaan inaad u bixiyaan oo maalin heblaaye iyo halkaasaan kula ballamay qolaba 20 nin buu la soo ballamay xoolo badanna meeshii buu ku ururiyo lagu qalqasho labadii qoloba waa yimaadeen kolkaa qoloba af buu kula hadlay sow maaha labadiina qolayba maxaan ku yidhi buuri qolo waliba wixii ay uu ku yidhi bay sheegeen labadiina qoloba been baanu sheegay buuri ee waa rogmanaysaan haddaa intaa kala maqnaataane 20 iyo 20 soo ma hidin haa imika isku bilaabo istila oo kii roonow reer kama hadhaan la yidhaaho haddii kala heshiiya isna faraskiisubu ku booday labadii qoloba waa qabteenoo adoonna xukumo mooye inaanaan kala tegin inaanad dhaqaaqin baa intaa dhaari naga taa la yidhi ninkaasi halkaasuu ku heshiisiyey labadiinna markii la heshiiyey ee heshiiskaasu dhacay ayaa waa ka gebiyey faaraxaf
wuxuu yidhi dabagaalla abeeso dushaasuu ka qabaado inuu duur la huluusho dareen baa kala gaadhoo diidyo aamini maayo tuntuba ciidna ka maydhayna tubaax loo dhici maayo waa ku daalahaya dalkeennii baxa waadlana wuu daandaansi badnaa dhallintaa dalabta dawliskaa murankeena dilaalkaa kabadhaa xaajadii baduraad xaaladii baduraad duulbaduul wax bidaay ilaa deelka qur-aanka iyo dalaaq lay maqashiiyo halka reer dalal joogo abad soo degi baynu wuli 20 ninba 3 dalaaqood iyo kitaab bad u maray maalinta ay halkaa ugu mareen dhaarta ayaa ee la heshiiyey ayaa nin wuxuu yidhi xayla laydhaa mar haddaynu heshiinay ibraahim waynu jabin makaahil ilaah baan kugu dhaagnay faaraxo waad gabi doontaa gabayga igu soo dar dee dagaalkii dambe la isugu yimid waa kii way guulaysteen waa kii deeta gabyaayay faaraxafay raggii aniga ila khayraha qabax markuu siiyey waa tii aan xamar qaayimow qoorta kaa rogay quuri ciid balaado iyo halkii laysku qalanaayey raggii aniga ila khayrahaa qabax markuu siiyey waa tii aan xamar qaayimow qoorta kaa rogay markaa qaashka way soo rogtay ayuu qubay makaahiile khumana xayla wuu garan halkan qiimi ku lahaa buuri ninkaasuna intaasi ayuu halkaa ka iibsaday intaa aan kaga baxno sheekadii dee manaan kala badhin sheekooyinkoodu waa sheekooyin aad u dhaadheer